waxaan rabnaa markan saxafiga ugu wanaagsan ama wariyaha ugu wanaagsan inkastoo anigu aan islahaa lagama horeeyo waxaana la ii sheegay in dad iga horeeya oo iga wanaagsan inay jiraan soo dhawow waan leenahay wasiirka warqadda noo fur wariyahaas u yeeraa arke waa sii wariyahaas aniga markaan soo qishay magaca وأد بنوقف في الفرعية صدق وزير هذا ما سنتي دولار وحن هالكن ويا يا وريا وجوه أكسن السنة كانت تجي سيدة معنا يلا وكل سجاري طبعا الصومالي أكرت جارهان دنيا ذا مقدشة وريها سي وصاحب كي وورال كي علي آدم مؤمن علي آدم مؤمن صدق سكوا على هذا المؤمن صاحب صدور دولار يا مقدشة أول وحروقا ما تعلنا لنا نقدر هنا يقصوا هديه أنا ما سنت وزير أديك وفصحنا علي لك واسكهرنا علي سنو مركو روكوهم بلينا إن أدنى قتي وريا سنة كلمة كون يسقال الطبانك هلا مقدشة وين هو ليس حد هو ليس هذاي وحنا هذا مقدشة دكتور صدق كل وريه ما حدا قصة وما سنتي نورتا مركو ده حماد علنا الله سبحانه وتعالى مركو كله وحربنا أسقاس وسلامه ضدك جابن سيدا نيجو كله تبدأ بحربة أنت أنا شيء صوت مارتي ويديسي أنا أديك هو سؤال لي سؤال أو صدق يكون وريه حاجة كنت رداس كم سوقت بقول وريه شو ما استاي ورياش كمان في عيني لكن وحنا مثلا نصيب كأيه ليه كمنان إجا قوم بدن إجا سهرية إجا ندمبين دونا جرا وحنا ما هاد علينا يا ضد كعد كودي سيء أي كرتي إن أنا هاي نقف مدن مثلا كان لسياب المريض قلنا هذا ما اسمه قد محدث وتكون متيسة أو واسع ما يسمى برنامج ور تابين يعني ما حد تكون متيسة waxaan ku mutaystay sidaan anigu aaminsanahay in dadka iyo codeeyay oo aan aaminsanahay inay yihiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed qaar madaxda ijecel inay jiraan oo maleynaya laakiin shacabka Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan anigu madaxda maxaa ka wadaa tusaale way xireen marka jacayl uma jeedo wariyaha marka la xiro ama wariyaha la ciqaabo hadda waxay tiri wariyaha Al-Jazeera ka xiran oo Qaahira ku xiran maalin walba Al-Jazeera waxay update ka dhigtaa maalinta ku korantay kun iyo labaatan maalmood oo xiran yahay yani waxa wariyahaas waliba waxa loo sii qorsheeyaa awaad yaala dooxa ama qadar yaala maalinta xabsiga ka soo baxay in la guddoonsiin doono maalin kasta oo xarigiisana waxa u socota lacag $1,500 ayaa u socota marka xarigu dhib ma laha
sida kaleeto maxaad is leedahay bulshada waa kusoo kordhis bulshada waxaa kusoo kordhiyey anisaan aaminsanahay in aan dhalinyarada soomaaliyeed ee aniga ila midka ah aan baray inay hadli karaan oo ay xaq u leeyihiin inay hadlaan sababta wax kale ma ahan aniga markaa hawshan bilaabayay miidiyaha ma aysan fogeyn sidaa daraaddeed waxaan la kulmay bulsho madaxeedu hoos jiro sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay qofku intuu nool yahay inuu xaq u leeyahay inuu hadlo waxa oo lala kulmo waxaa ka mid a nolol iyo geeri middo dooranaysaa way badan tahay tirada aan naftayda qadimay ee aan maaragtay u qadimay si aan dadka iyo codeeyey kuwa lamida iyo iyagaba aan ugu sheego wax ay mudnaayeen in loo sheego goormaa kusoo biirta saxaafadda sanadka waa tahay erey lagugu xantaa jira gabagabadeed ma isku taqaanaa waa caadi dadku waxay dhahaan qarax quute laakiin cuntada cuna waa tahay hambalyo aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo waana kula wadaagayaa inta kuu codaysay iyo bacda saxaafaddana waa kugu dhiirigelinayaa runtii kartidaadana waa soo dhaweynaa halkaana kasii wada dadaalkaaga waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe inaan kugu qabsan doonaa awaadka laftirkeen aad umaasan bacdooda iga dhigay waata caali aad umaasan yahay yaa noogu xiga dadweynaha kugu